odayaashii dhaqan ee ugu badnaa ee kasoo jeedo beesha Afgaal ayaa la afduubtay in ka badan 30 oday oo deegaanka ah ayaa la afduubtay waxaana lagu hayaa tuulo lagu magacaabo Meertaqo oo ka tirsan Shabeellaha Dhexe 48 saacadood ayaa loo qabtay Xasan Sheekh Maxamuud isagoo oo ku sugan wadanka Ciraaq waxa uu eg afgambi ayay wadaan madaxweyne Shariif xildhibaan Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame iyo mas'uuliyiin kale khudbado dhowr iyo sidoo kale hadallo daleeceyn ah oo lagu jeediyay ama loo jeediyay madaxweyne Xasan Maxamuud ayaan kula wadaagaya sidoo kale hadii alweyne laga helo waxaan ku hayaa dhalinyaradii ugu badneed ee Soomaaliyeed ayaa maanta ku biiraya askarta xoogga dalka Soomaaliyeed jacaylka ma aha ee duruuf wadanka ka jirta ayaa lagu micneeyay maanta mid kamid ah xariyaha ciidamada dawladda ee Muqdisho ayaa la sheegay in askar laga doonayo laakiin wixii ka dhacay ayaa ahaa waxyaab leh kadib markii ay buux dhaafiyeen dhalinyaro aad u badan wadadii xirantay galalkii ama faylkii intii loo baahnaa la buuxiyay dhalinyaradina diidan inay guryahooda dib ugu noqdaan ilaa ma si qasab ah ciidanka xoog loogu daro waxaan ku hayaa shaqo la'aanta baasan ee Soomaaliya ka jirta iyo dhalinyaradaasi tahriibka ka doorbiday inay u shaqeeyaan qaranka wararkeena kale hadii alweyne laga helo caawa aad daawan doontaa waxa qayb ka ah dagaal culus iyo duqeymo lixaad leh oo gobolleeci caawa ka dhacay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe macaawisleyda ayaa qayb ka ah dagaalkaasi waxay dileen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab qodobadaas oo faahfaahsan eegayna marka hore waxaan si milga iyo sharaf iyo maqaam leh kaaga codsanayaa in muuqaalka like saarto like-tu waxay naga saacidaysaa in muuqaaladeena meel fog ay gaaraan dad badanna ay daawadaan aad iyo aad u mahadsantahay saaxiib muuqaalka like saar channelkana subscribe soo dhig hagaag kooxda Al-Shabaab ayaa tuulooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxay ka afduubteen ku dhawaad 40 odayaal dhaqan oo ka tirsan beesha Afgaal kadib markii ay u yeereen oo ay u sheegeen in ay ka wada xaajoonayaan dagaalada dhacaya iyo sidoo kale in xalka nabad lagu soo dabaalayo oo ay iyagu nabadda ka shaqeynayaan saaminaad ma leh kooxda markii odayaashaasi dhaqan ay u yimaadeen gaadiid ayaa lagu guray waxa la geeyay tuulo Meertaqo lagu magacaabo oo ka tirsan Shabeellaha Dhexe oo ay kooxdu ku xoogan tahay kadibna waxa loo furay wax lagu sheegay dooro ama in wax la barayo oo dhaqan cilimba lagu sameynayo odayaashii dhaqan dhibaato ayay taasi keentay dadkii shacabka ah way ka caroodeen laakiin dagaal waa ay gali waayeen maadaama odayaashii dhaqanka lahaayay waxaana la soo sheegayaa in taleefanadii laga qaaday deegaankeen isgaarsiintu ay ka maqan tahay dadkii iyo qoysaskii ay odayaashaas dhaqan ka tageen ay dareemayaan walwal iyo cabsi joogto ah bacdama Meertaqo xitaa ay ka dhici karaan duqeymo iyo dagaallo ay dawladdu ku qaadayso cabsidaasi ayay qoysasku la nool yihiin oo waxa ay ka cabanayaan in ay dhici karto in dawladdu ay weerar ku qaado halkaasi isla markaana odayaashii dhaqan oo deegaanka ku sugan la majaxaabiyo isla markaana la geliyo dagaal odayaashan sudameeyo ay ku dhow yihiin meelo kala duwan oo dalka ayaa laga wacay qaarkood Jowhar ay ka baxeen qaar Muqdisho qaarna gobolada Shabeellooyinka ayaa looga yeeray kolkii ay tageen ayaase ballankii looga baxay oo si qaab daran ay kooxda ula dhaqantay sida dad deegaana ay warbaahinta u sheegeen kooxda Al-Shabaab ee sanadii ugu dambeeyay talaabooyinka noocan oo kala way qaadaysay laakiin odayaashan dhaqan waxay ku aamineen bacdama kooxda dagaaladii ugu dambeeyay ay khasaare xoog leh kala kulantay ayna islahaayeen waa ay waantoobeen oo ficilada qaar kuma dhaqaaqi doonaan laakiin Al-Shabaab wali halkooda ay ka sii wadaan odayaashaas ayna gacanta ku hayaan dhinaca kale meel aan saas kaga fogeyn deegaanka Tawfiiq iyo inta u dhaxaysa degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe galabta waxa ka dhacay dagaal xoog leh kadib markii ciidamada ka tirsan kuwa deegaanka ay ka warheleen Al-Shabaab halkaasi adeegsanayay oo watay gaadiid afar iyo sidoo kale rag badan oo saaraa oo dagaalamayaal ah inta kadib weerar jidgal ay ku sameeyeen dhabaha ay u galeen gaadiidkii ay ka gubeen tiro dagaalyahana ay dileen laakiin shabaabkii gurmad kale ay heleen macaawisleyda xaaladda ayaa ku xumaatay laakiin waxay gurmad ka heleen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan aaga Tawfiiq iyaga oo isla markiiba gurmad u diray isla markaana dagaalkii garabka siiyay kadib waxa si dhacay duqeymo xoog leh oo gudaha degmada Aadan Yabaal kooxda loogu geysay bacdama ay soo urursadeen dagaalna ay diyaar u hayeen maanta Al-Shabaab waxa la gaarsiiyay khasaare xoog leh in ka badan 40 meeyo ayaa la dilay dagaalkii sida la sheegay gaadiid ku dhawaad 6 ahna waa la gubay oo duqeymo iyo dagaal foolka foola ayaa lagu gubay xaaladda Aadan Yabaal ayaana caawa ah mid aad u kacsan sida la soo warinayo maalintii shalay ee Jimcaha ayay ahayd markii in ka badan 100 dagaalyahan lagu dilay deegaano hoostaga degmada Halgan ee gobolka Hiiraan iyo sidoo kale xadka ay wadaagaan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan ee maamulka Shabeelle shalay oo Jimcaha ahayd jabkii ugu xoogana ayaa kooxda gaaray sida la wariyay iyadoo oo markaasina khasab ay ku noqotay kooxda in ay sameeyso dib u galasho dagaal Shabeellaha Dhexe waa meesha ugu badan ee hadda ay ka soconayaan dagaalada qaraad ee u dhaxeeya kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda madaxweyne Xasan Maxamuud ayaa dhowr jeer oo hore tagay Aadan Yabaal taliska ciidanka xoog gaar ahaan sareegaas Odawa uu tagay
gudoomiye Shoote iyo rag kale oo aad u badan ayaa tagay hadda marka ugu dambayso waxa awood ciidan inuu ku qabsado halkaasi doonayo wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya dhawaan loo magacaabay Dr. Axmed Macalin Fiqi oo isagu dhiig cusub ku shiraya halkanka ka dhanka ah waxa loogu yeero argagixisada sidoo kale magacaabis la doonayo mahasalaad in xulka lagu keeno ama loo soo xusho markale inuu hogaamiyo Nisa ayaa soconaysa taas oo iyaduna markaasi dad badan ay u arkaan isbedel dhaba oo dhinaca dagaalka ama tallaabada loo qaaday sidee baad u aragtaa qodobkaas aragtaada qaybta hoose faalada noogu reeb dhinaca kale mucaaradka ayaa 48 saacadood ee lasoo dhaafay Muqdisho ku lahaa shirar xoog leh waxaana shirarkaasi oo dhan looga arrinsanayay sidii laga yeeli lahaa dawladda uu majraha u hayay Xasan Sheekh Maxamuud oo lagu eedeeyay inay iska indhatirtay dhibaatooyinka dalka jira iyo sidoo kale inay ka gaabisay howlihii loo igmaday Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda ku sugan dalka Ciraaq isla markaana shir carbeed halkaas kaga qayb galaya ayaa waxa afgambi wax u eg dalkii ka wada Shariifka iyo sidoo kale xubno uu ku jiro xildhibaan Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame oo urursaday xildhibaano gaaraya 100 mooshinna ka keenay madaxweynaha baarlamaanka warqad wiifta oo xalay aadamada soo saaray maanta oo sabti ah kulankii ay lahaayeen ayaa gabi ahaanba laga baajiyay cabsi laga qabo xilka xanyoomin lagu sameeyo madaxweynaha ugu sareeya dalka Xasan Sheekh Maxamuud xildhibaanadaasi tiradooda waxay ku sheegeen inay tahay 100 mudane waliba 102 mudane oo ka tirsan baarlamaanka waxa ayna doonayaan inay xilka xanyoomin ku sameeyaan madaxweyne Xasan Maxamuud kadib markii ay ku eedeeyeen in uu ka gaabiyay waajibaadkii loo igmaday waa ay sida iyagu markaasi hadalka u dhigeen dhowr jeer oo hore waxaa la soo sheegayaa in dawladda federaalka ee Soomaaliya baarlamaanka sidan oo kale kulamadooda ay u baajisay si gaar ah guddoonka iyo madaxweynaha oo isgarabsanaya taasina ay keentay inay caroodaan xildhibaano aad u badan hadda Xasan Sheekh waxa uu wajahayaa waxa uu afgambi madaxweyne Sheekh Shariif iyo mudane Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame oo xisbiga wada jir hoggaan ah ayaa markaasi kaalinta ugu weyn ka qaadanaya in madaxweyne Xasan Maxamuud lama jaxaabiyo Xasan ayaa dhawaan ahaa halkan ama Muqdisho waxa uu ka magacaabay ama uu dhawaaqay xisbi ugu magacdaray cadaaladda iyo wadajirka kaas oo dadku badankood ay yiraahdeen Xasan iyo cadaalad halkeeba iska soo galaan waa tii isagu uu dhacay dhulalkii danta guud sidoo kalena qabyaalad iyo nin jeclaysi ay ku eedeeyeen ugu dambeynna barnaamijyadeedkeena waxaan ku soo xireynaa wararka laga helayo gobolka Gado ee Soomaaliya ayaa sheegaya in wali xaalad kacsanaan u dhaxayso dawladda federaalka iyo maamulka Jubbaland ay ka taagan tahay gobolkaas iyadoo oo labada dhinacba ay isku hayaan dhinaca maamulka waxaa la soo sheegaya in dawladda federaalka haatan ay ku gacan saartay ama ay ku gacan sareysaan ilaahda ee gobolka Gado waxayna isku fidisay inta badan degmooyinka gobolkaas marka laga reebo magaalada Doolow waana halka ama howlgalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halka kaliya ee u dhiman in ay hadda gaaraan afayeenka gobolka Owareysi Radio Kulmiye ayaa xaqiijiyay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay maamulayso gobolka isagoo oo meesha ka saaray wax Jubbaland la yiraahdo dawladdu waxa ay rabtaa in gobolka Gado ay iyadoo gacanta ku hayso sidoo kalena ay dhawaan halkaasi uga dhawaaqdo maamul cusub oo la magac baxay Jubbaland isla markaana dawladdu ay raali ka tahay laguna majaxaabiyo hogaamiyihii muddada dheer Jubbaland madaxda ka ahaa Axmed Maxamed Islaam Madoobe sidoo kalena kamid ahaa xubnihii ugu sareeyay kooxda Al-Shabaab ee dawladdu sida baan dagaalka uga jirto gobolka Gado hadda waxa laga cabsi qabaa dagaalo ka dhaca hore waxa loo xusuustaa in gobolka Gado ay dagaalo ka dhaceen sidoo kale qaybo ka tirsan Jubbooyinka si gaar ah gobolka Jubbada Hoose deegaanka Raaskambooni oo ay isku farasaareen dhalinyaradii Soomaaliyeed ee kala taabacsanaa dhinaca dawladda federaaliga ee Soomaaliya iyo sidoo kale dhinaca maamulka Jubbaland taas oo dad badan ay aad uga xumaadeen sidoo kalena sawirka qaldan ka gudbisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guud ahaan mowduuceenan waxaan jeclahay inaan intaas ku soo gabagabeeyo haddii aad inta nala soo gaartay waxaan ka codsanayaa saaxiib inaad muuqaalka like saarto like-tu waxay naga saacidaysaa in muuqaalkeena uu meel fog gaaro sidoo kale waxaan si sharaf iyo karaamo leh kaaga codsanayaa in muuqaalka like saarto si aad u hesho wararka degdeg ah ee aan halkan ku baahino sidoo kalena inaguna ay noogu noqoto dhiirigelin waxaan si maalinlaha uga hadalnaa dhacdooyinka caalamka guud ahaan gaar ahaan kuwa taabanaya Soomaalida ee wararka Soomaalida siyaasadda iyo dagaaladaba la xiriira ayaan ka hadalnaa ugu soo bir muuqaalka like saar channelkana subscribe soo dheh mahadiha ka gaadho caways wanaagsan saaxiib